وحاول talooyin kan iyo bayaanka laga soo saaray waxyaalaha mabaadi'da guud ee culimada midaynaysa oo la rabo inay ka wada shaqeeyaan waa arrin horumar leh runtii oo lagu farxo diinteena islaamkuna waxay ka tarjumaysaa xataa arkaanul islaam midnimada dadka muslimiinta culimadu ayagu haddee inay iskhilaafaan oo ay kala tagaan waaba foolxumo iyo dembi weyn ayagu waa dadkii wax midayn lahaaba markaad aragtid arkaanul islaamka salaada soo qabo waxay ka tarjumaysaa midnimo nidaamka na dadkay baraysaa oo fawdaday kasoo horjeedaa waa midnimadana way baraysaa 5 waqti baa la wada tukan jamaaca la wada tukan masjid baa la isugu iman qofkii laga waayo waxaa la leeyahay war hebel miyuu ku jiran yahay waa la raadin soonkii zakadii hal bil baa la wada bixin zakadii soonkii hal bil oo ramadaana la wada soomi xajkii waa mu'tamar weyn oo isagana muslimiintii baa hal maalin baa carafo la istaagi intaasoo malyan waxaasoo dhan waxay ka tarjumayaan midnimada islaamka ayay ka tarjumayaan marka waa wax lagu farxo culimadii Soomaaliyeed oo soo saartay mabaadi' guud oo lagu wada shaqeyn qaacida waxaa jirta la sheego oo la yiraahdo nacmalu فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه waxaan ku shaqeynaynaa waxaan isku waafaqsanahay qaarkeena qaarka kale ugu cudur daari masaa'il yar yar hadii la isku khilaafo waa la isku cudur daariyo inta waxa badan inta isku mid ka laga yahay intaasaa lagu wada shaqeynayaa laakiin waxaan idiin sheegayaa culimada Soomaaliyeed ayagu way midaysan yihiin sida hadda la sheegay madhabkoodu waa Shaafici fiqiga waa ahlu sunna wal jamaa dhamaantood ayaan waagii hore xagga qiraa'aadka xataa abi camar bay Soomaalidu akhrin jirtay taasaa lagu midaysnaa hadda masaaxiiftii waa inagu badatay waxaad moodaa hadda in loogu badan yahay abi xafsaad moodaa riwaayada xafsa can caasim in loo bataad moodaa laakiin waagii hore waxay ahayd qiraa'adu abi camar bay ahayd waxaasoo dhan waxay ka tarjumayaan ummad xagga diinta wax walba ku midaysan ayay Soomaalidu ahayd midnimadaas inaan sii xoojino culimada waan ugu baaqayaa caamaduna sida hadda sheekhu u sheegay sheekh Soomow iyo culimada ayagaaba sii kala geeyo culimadu way iskhilaafsan tahay ku hayn maalin walba iyo maahiyo dul culimo qastaan nahay culimadu heshiis ma aha iyo bal ayagu horta ma heshiiyaan culimadu heshiis ma aha markii culimada waxaan leenahay heshiis baana hortiina warqada lagu saxiixo arkaysa wax dhib ah oo noo dhaxeeyo haba yaraatee ma jirto waxaadna ogaataan inta da'duna weynaan caqliguna badan cilmiguna badan waayo aragnimo iyo bisayl baa la gaadhi marka qofku wuu arki karaa danta guud waxa ah iyo waxyaalo yar yar oo macno lahayn wuu kala qadarin wuuna kala garan marka marxalad la bislaaday baa la joogaa khilaaf looma baahna middan ku saabsan xag jirnimada wax badan baan ka hadalay runtii xag jirnimada iyo argagixisada waxaa nasiib daraa qof isa soo qarxin horta ayagu anigu saan qabo way kala duwan yihiin qaar way garanayaan waxana inuu khalad yahay warar badan baan hayaa qaar dhahaya wax yar baan la joogi waan ogay nimankan inay khaldan yihiin waxoogaa lacagahon South Africa iyo dibadaha iyo ku aado ayaan aruursan kadibna waan ka tegay qaar sidaa dhaha way jiraan qaar ka xataa waaweyn soo dhalinyarada kuma qarxiyaan isqarxiya dadkana soo laaya idinkuna isqarxiya
maxay isu qarxin waayeen sheekh cali dhaari iyo robow iyo kan axmed godone bedel anu maba aqaaneen kuwaas maxay isu qarxin waayeen hadday run sheegayaan haddii janno lagu geli dhalinyaro yar xataa waxay kala dagaalamaan inay kutubta akhristaan cajaladaha dhegaystaan yacni culummada hadda inagu waxaan leenahay maxay culummada u maqli laayihiin in culummada la dhegaysta waaba dembi agtooda ha dhegaysaninaa la dhihi sida loogu diri iyagana waa ciyaal yar yaa hadhowta waxayba leeyahay murtad maan diin ka dhegaysan ma dhegaysanayaan way ka ilaaliyaan naseexa ahaan waxaan u leenahay kuwa waaweyna geed fadhiga ah war waxani diin ma aha diinta islaamka waa la yaqaanaa qur-aankii waa ka weyna dhex yaalla sunnadii nebigaa taalee saxiixa ahayd meel muslim lagu dili xaggeed kaga aragteen muslimka la dili waa la yaqaana oo diintaa sheegtay oo mathalan xadiidkii sheegayay laa yaxilu damu imri'in muslimin ilaa min ixdaa halaath iyo wixii la mida yani qof dilay iyo azani lmuxsin qof gogol dhaaf sameeyey isagoo guur soo maray iyo kii kale oo taariku lidiiniha almufaariqu liljamaca murtadka iyo qodobo sidaas oo kale waa la yaqaanaa laakiin qof muslin ah in la yidhaahdo dhiiggiisaan janno ku galaynaa aan soo dillo runtii waa dhibaato maskaxda bini aadam had mararka qaarkood anoo keliya waxaan ka fakaraa dadka sida loo khaldi karo nin meena isku soo xidhxidhay ama baabuur weyn oo shidaal iyo bamboonayu ka boodaan isku qarxinaya yacni xag jirnimada xaddaa gaadhay runtii waa halis haddayba kasii dartay oo waxaa la sheegayay baryahan daacish inay ilmo yar oo 6 jir iyo 5 jira ay ku ababinayaan sidii dadka loo gowrici lahaa cajaladihii iyo inta u shidaan filmadii ay dadka ku gowracayeen madaxii dadka bini aadmigaana inay ciyaalka la yiri kubad ka dhigtaan si ay u noqdaan hadhowto manaxayaal ayagoo kala waxaan u sheegaynaa daacish iyo kulligood iyo shabaab diinta islaamka waa la yaqaanaa waxaad ku socotaan diin ma ahee hadday dan idin tahay ilaahay u toobad keena annagana waa noo dan idinkana waa idin dan war ilaahay u toobad keena diintana usoo noqda dadka aada luminaysaan iska daaya waan hubaa goor aan maanta ahayn oo xeeriya faldhaanka la dhaceen inaad dhihi doontaan waan khaldanayn ood adduunkii hadlaysaan haddii waan khaldanayn kolkaa maxay tari war intaydaan dembig sii gelin sii badin dad badan baad haddaba layseene war ilaahay u toobad keena culummadana u imaada shaydaan baad u raran tihiine kasoo toobad keena wasalaamu calaykum waraxmat ullahi taariikhiha waana arrin oo runtii mar kasta aanu ka fikirayna inaan aragtidan oo kale inaan yeelano wacyigan midaysan inaan yeelano kadibna aan sii baahino oo gobolladoo dhan iyo meel kasta inaan gaarsiinayo insha allahu tacaala ka shaqaynaynaa waana arrin runtii loo baahan yahay mar kasta caddaynayso in ay soomaalidu wax badan u dhexaynin wax kastana in loo celiyo culimada ayaa muhim markaas noqonaysa marka intaasaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena waa inoo xiran yahay aadna waad u mahadsantihiin saxaafadda oo nala socda meesha waa mahadsantihiin